warbixin ay diyaarisay idaacadda BBC News qaybteeda af Ingiriiska ayaa waxay sheegtay in TikTok giftiga loo dirayo qofka markuu live ku jiro TikTok-ga ee boqolkiiba 70 ay goostaan TikTok-ga 30% qofka waxay ugu dhacaysaa akoontigiisa warbixintan ayaa BBC-da waxay ka diyaarisay qoysaska danyarka ku nool dalka Syria qoyska oo live ku jira ayaa wariyaha warbixinta diyaarinaya wuxuu u dirayaa gift libaax ah oo haddii lacag loo bedelo u dhigmata $100 kadib markii live ka baxan qoyskan ayaa akoontigooda waxa uu soo dhacaya $30 70 kalena waxa ka goostay TikTok-ga wariyaha ayaa su'aal ka weydiisay TikTok-ga ayadoo u dirtay message balse waxay ugu soo jawaabeen in boqolkiiba 70 ay goosan balse amount care 70 ay goostaan wariyahan oo sii wata warbixintiisa ayaa mar kale wuxuu ku celiyay processka markan TikTok waxay goosteen boqolkiiba 66 oo u dhigmata boqolkiiba 70 oo markii hore goosteen waa yaab iyo argagax waxa laga yaabaa Soomaali badan inay warbixintan ogeen waxaan ka codsanayaa inaad hadda taqaanid saaxiibka oo soo gal TikTok live-ka warbixintan u sheegaysid daawaday la daabo wariyaha uu ka sheekeynayo sida TikTok-ga u jartaan una faa'iidaan markay dadka live ku jiraan Giftyaas isku dirayaan You might have seen videos like this on your For You page. We found hundreds of accounts like them, with children in Syria begging for gifts on TikTok lives. Now, these gifts are bought with real money and they have cash value, but that money isn't all going to the families. It's not even close. To start with, TikTok takes 70%. We did a test to find out. We set up an account in Syria, and from our account in London, we sent $106 in TikTok gifts while they were live. At the end of their live stream, the balance of their account was $33, which means TikTok took around 69%. Now, TikTok insists they don't take 70%, but they still won't tell us how much. So we repeated our experiment with accounts in the UK and Syria, and TikTok took around 66% every time. And there are other people profiting from this. There are middlemen who are also living in the camps. One of the guys we spoke to said he sold everything he owned to buy a phone. They go around filming with different families, and they also take a cut. These middlemen are working with live agencies in China who provide the accounts and get them the 1,000 followers they need to go live on TikTok. These agencies are paid by TikTok. wariyaha warbixinta ayaa wuxuu sheegay inay jiraan dad loo yaqaano middleman oo ah dad ajensiyaal ah waxay la shaqeystaan dadka TikTok-ga iskale oo live ka suubiyay ajensiyaashan ayaa markay rabaan inay qoys dan yar live ka soo duubaan ayaa waxay la xiriiraan TikTok-ga ayaa shuruudaha dhaqso u buuxiyo wuxuu siiyaa 1000 followers kadib ay live soo galaan halkaas oo lacag ka suubiyaan waa arrin aad looga yaabo warbixintan waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaali inay warbixintan la socon waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka u sheegaysid si ay wax badan ugu fahmaan warbixintan oo ku maasanta daawashada muuqaalka